cabdullaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa lagu yidhi maninnaas dadi ayay yihiin noo sheeg markaasuu yidhi alculamaa dad haddaad i weyddiiseen dad waxa weeyaan waa culammada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana ee aakhirada yaqaana ee shareecadda islaamka yaqaana dadkaasuunbaa dada markaasaa lagu yidhi famanilmuluuk kuwa haddii aad dad ku sheegtay haddana boqorraduna ayay yihiin markaasaa yuu yidhi azzuhaad waa dadka zaahidiinta ee adduunyada ka zaahiday ee adduunyada bedhbidhkayga waxa dul yaalla waxba aanan u arkayni markaasaa lagu yidhi ma tawaaduc tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaasaa yuu yidhi attakaburu cala alaqniyaa dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u waxba aad u arkin oo agtaada qiima aanan ku yeelan taasaa tawaaduc la yidhahdaa buu ku yidhi markaasaa lagu yidhi faman isufahaa dadka sufahaduna ayay yihiin maangaabka caqliga aan lahayn wuxuu yidhi alladii ya'kulu diina biddunyaa waa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magacaa diineed haddana dadka adduunye kaga doonaya wejigiisaa diineed adduunyada u isticmaalaya kaasaa safiiha buu yidhi fanuxsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ixsaan u samayno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxaa kaluu ku yidhi ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmaayey dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaanna ha xasuusan buu ka yidhi waxaad noqotaa qof saliimu sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif muuminka qalbigiisu غل يا حسد يا بغض وعينه كهذا صليم وكي النبي لها حديث في السنن نين أهل الجنة نقول صوبح دونا نسحابة كمدا صوغلو سووا يسيستي سحابة نكي بيفيريين هذانا مالين لبعض والنبي يقول نين أهل الجنة نو صوغلي دونا إسلام نكي بصوغلي هذانا مالين صدحات والنبي يقول نين أهل الجنة نو صوغلي دونا إسلام نكي بصوغلي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yidhi aabbahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasuu marti qaaday aabbihiina ismay soo diideen wuxuu rabay keliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlal janna ha soo aragtid buu ku yidhi ha soo aragtid buu islahaa iyaku khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen